kooxda ciyaartooyga ee gobolka Hawd ayaa hal gool iyo eber kaga badiyay ciyaartooyga ka socday gobolka Sanaag oo maanta ciyaarkooda ku dhexmartay garoonka Alamsa Stadium ee magaalada Burco. ciyaartii dhexmartay labadan kooxood oo qaybtii hore ciyaartu ku dhamaatay eber iyo eber ayaa markii la isku soo laabtay qaybtii dambe ciyaartu socotay wax yar ayaa ciyaartooyga gobolka Hawd soo qaadan weerar waxaana gool qurux badan ka dhaliyeen ciyaartooyga gobolka Sanaag iyadoo goolkaasi uu dhaliyay gobolka Hawd ciyaartooygu u sitay lambarka 13aad. weeraryahanada kooxda gobolka Sanaag ayaa weeraro ku qaaday goolka kooxda gobolka Hawd saa u keenan barbardhac balse kumay guuleysan arintaasi waxaana ciyaartu ku dhamaatay hal gool iyo eber. geesta kale ciyaartii kubadda koleyga ay xalay dhexmartay gobolada Gabiile iyo Maroodijeex oo guusha ku raacday gobolka Maroodijeex oo ku badiyay 53 dhibcood halka Gabiile keentay 50 dhibcood. ciyaartan dhexmartay labada kooxood ayaa waxa ka dhashay rabshado isla markaana waxa kooxda ciyaartooyga Gabiile ay gacan saareen garsoorihii kubadda oo ay nabad ka gaarsiiyeen sanka. ciyaartan ayaa dhamaatay 11 habeenimo kadib markii buuq iyo rabshado hareeyeen taageerayaashuna ay mararka qaarkood gudaha u soo galayeen garoonka kumana guuleysan ciidamada boolisku inay gacanta ku soo dhigaan kuwii gacanta saaray garsooraha. guddiga anshaxa ee kubadda koleyga Somaliland ayaa caawa fiidka laga filayaa inay soo saaraan go'aamo ay wax kaga qabanayaan rabshadihii iyo wixii ka dhacay xalay garoonka kubadda laliska ee magaalada Burco.